hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo igmaday xilkan inaan noqdo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo horumarinta xeebaha. Waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta miyiga iyo dhammaan shaqaalaha wasaaraddaas muddadii ay soo hayeen shaqadii kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga. waxaan maanta soo gulbinay oo aan soo sagootinay shaqaalaha wasaaradda horumarinta reer miyiga oo aan ku soo wareejinay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga. waxaan u rajeynaynaa nasiib wanaag iyo shaqo wanaagsan shaqadii ay ka hayeen wasaaradda horumarinta reer miyiga mid lamid ah iyo mid ka fiicanba inay ka qabtaan tan xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga. ama baad uga sheekaysay waxqabadkii wasaaradda horumarinta reer miyiga. waxaan soo dhaweynayaa shaqaalaha nagu soo wareegay ee ka yimi wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga markay ahayd iminkana iyo horumarinta reer miyiga. iyagana waa soo dhaweynaynaa, iyagana waxaanu ka filaynaa inay sidii ay ula shaqeyn jireen wasaaraddii hore iyo si ka fiicanba ay noola shaqeeyaan. xagga iyagana intaa in la eg inay ka fishaan. intaa kadib maadaama maanta la kala soocay kalluunkii iyo geela miyaadhamse kalluunkii iyo xoolihii, innaga waxayna saaran qoladeena kalluunka waxayna sugaysaa hawl culus oo u baahan karti iyo waqti fara badan. waxaad ogtihiin inaynu leenahay bad dheer oo dhererkeedu yahay 850 kilomitir oo dihin. waxaa la doonaya waxa lana saaray waajib ah khayraadka badda ku jira inaynu inagu soo saaridiisa inaynu mas'uul ka noqono. si aynu taa u gaadhno marka waxa lanooga baahan yahay marka hore inaynu horta xog helo. markaynu xogta helo dabeedna aynu qorshe samaysano plan iyo istaraatiijiyad aynu ku shaqeyno, dabeedna aynu dhaqaaqno aynu ku hawlgalno qorshahaas. maanta adduunyadu waxay u gudubtay wax la yiraahdo blue economy. baddu khayraad fara badan baa ku jira. waxaa loo baahan yahay markaa kow inaan horta dadkeena barno, wacyi gelino, u sheegno faa'iidada uu kalluunku leeyahay dhinac kasta. kalluunku wuxuu qayb weyn ka noqon karaa kaabayaasha dhaqaalaha waddanka haddii aynu la soo baxno oo si wanaagsan u saaro. innaga wasaaradahan waajibkeed wuxuu noqonayaa wacyigelin, daraasado, suuq raadin, inaynu u samayno facility dadka kalluumaysatada meelaha ay dhigtaan. waxaa badan Ismaaciil ka soo sheekeeyey meelo badan oo laga sameeyey qaboojiyaal iyo doonyo la geeyey. waa inaan hawlaha sii kordhinaa. waa inaan dadka kalluumaysatada marka ay soo kalluumaystaan ay helaan meel ay ku kaydsadaan kalluunka ay la soo baxeen. waa inaanu suuq u raadinaa mid maxalli ah iyo mid international ah, oo waa inaanu raadinaa international investors. marka hawshaas oo dhan baa ina sugaysa. waxaan rajeynayaa inaynu si wanaagsan uga wada shaqeyn doono haddii la haydmo. waqtigu iska kaaban yahay, salaadii duhur baa dhow, waan malanaya mar dhow waa la adimayaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. ilaahna ha inoo fududeeyo xilkaa laynoo egmaday. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.